asalaamu calaykum daawadayaal ismaqal aragti wanaagsan dabcan waxqadeena labaad iyo ma og tahay mise ma la socotaa dabcan daawade ma og tahay mise ma la socotaa in xayawaanka dibiqalloocu uu neeftiisa isku celin karo mise uu hayn karo muddo 6 maalmood ah mise 6 cisho ah daawade ma og tahay mise ma la socotaa in dalka Mareykanka uu yahay dalka kaliya ee wadamada luqadda Englishka ku hadla uu xarafka Z ugu dhawaaqo Z dabcan hadda dalka Mareykanka aad joogto mise dabcan aad marun booqatay laga yaabaa inaad igaba og tahay in xarafka Z ay ugu dhawaaqaan Z daawade ma og tahay mise ma la socotaa in Theodore Roosevelt mise madaxweynihii 26aad ee dalkaasi Mareykanka soo maray uu ahaa inta taariikhda la og yahay madaxweynaha kaliya ee lahaa tattoo mise khadka jirka lagu sharaxdo dhammaan 45kii madaxweyne ee soo maray dalkaasi Mareykanka daawade ma og tahay mise ma la socotaa in goronyada mise xayawaanka goronyada mise shimbirta goronyada ay maskaxdeedu ka yar tahay isheeda mise indhaheeda subxaanallah daawade ma og tahay mise ma la socotaa in dabcan xayawaanka nibiriga walibana mise aan idhaahdo kalluunka nibiriga walibana kuwa la isla yiraahdo mise bahda la isla yiraahdo blue whaleska mise nibiriga bluega uu yahay xayawaanka ugu weyn ee adduunka soo maray walina aan dabar go'in ee dabcan hadda nala sii nool kuwaas oo dabcan culeyskiisu yahay mise miisaankiisu uu yahay 173 tan taasoo u dhiganta 162,386 mise 86 kilogram kaas oo dabcan joogiisa dharka mise dharkiisa uu gaarayo 79 feet ilaa 82 feet mise aan idhaahdo 24 mitir ilaa 25 mitir oo dherer ah miisaanka intaas la eg iyo walibana dabcan jooga mise dhabarka intaas la eg waad garan karaysaa xayawaankan nibiriga walibana qaybtiisa bluega ah waad garan karaysaa in uu yahay xayawaanka adduunka ugu weyn ee soo maray aanan dabcanna weli dabar go'in sida xayawaanada kale aan idhaahdo hadday noqoto dinosaurska kaas oo dabcan dabar go'ay dhowr milyan oo sano ka hor daawade ma og tahay mise ma la socotaa xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka in boqoradii wadamada Jarmalka Ingiriiska iyo walibana Ruushka oo kala ahaa boqor Wilhelmkii labaad ee dalka Germany oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Germany soo maray boqor George-kii shanaad ee boqortooyada Ingiriiska iyo Nicholas-kii labaad ee Ruushka ay saddexduba ahaayeen saddex isku ilmo ayeeyo ah mise hal ayay ka soo wada jeeday taas oo ayeedood ahayd boqorad Victoria wuxuu xukumaysay boqortooyada Ingiriiska muddo dhan 64 sanadood mise 64 sanadood saddexda boqor mid ka mid ah oo ahaa dabcan boqor Wilhelmkii labaad ee dalka Germany wax laga su'aalay dagaalkii koowaad ee dabcan ee adduunweynaha ayuu ku jawaabay haddii ay yeeday waa boqorad Victoria ay hadda noolaan lahayd marnaba raali kama aynan ahaateen dagaalka daawade ma og tahay mise ma la socotaa intii ugu horeysay ee lagu tijaabiyay mashiinka wax lagu diirsado ee microwave-ka lagu yiraahdo luqadda Englishka ay ahayd saloolka mise daangada hadda sidaad u taqaanto intii ku xigtayna mise labaad ee lagu tijaabiyay ay ahayd ukunta taas oo ku qaraxday wajiga mid ka mid ah tijaabiyayaasha waqtigaas tijaabinayay aaladan wax lagu diirsado ee microwave waliya aalankaas mise tan iyo maanta haddii aad ukun ku diirsanayso microwave ogsoonay in ay kugu qarxiso
ka fujigno ayaan ku leeyahay. daawade ma og tahay mise ma la socotaa geelu markuu ooman yahay mise uu haraadan yahay uu dabcan cabbi karo in ka badan 135 litir mise 30 gaaloon oo biyo ah 13 daqiiqadood wax ka yar mise 13 daqiiqadood gudaheed. dabcan waad garan karaysaa haddii aad geel jirata mise dabcan aad weligaa geel la joogi jirta. daawade ma og tahay mise ma la socotaa inaadan blog garayn karin mise blog aadan saari karin facebooka Mark Zuckerberg mise dabcan aasaasaha iyo welibana mulkiilaha shirkadda Facebook. tijaabi haddii ay kuu suura gasho commentiga igu reeb waxaad kala kulanto. daawade ma og tahay mise ma la socotaa 70% qaybaha basbaaska hadday noqoto heeldagoolaha qorfaha sacfiraanka xawaashka cuntada iyo kan shaaha basbaaska cas huruudda filfisha sinjibiisha geedaha malmalka fooxa iyo dabcan waxyaalaha kale la halmaalo ee adiguba dabcan aad ku darsan karayso haddii aan ka tegin waxaas oo dhan oo basbaas laysla wada yidhaahdo 7% guud ahaan caalamka waxay ka yimaadaan mise laga soo saaraa dalka Hindi. intaas ayaan maanta kusoo koobayaa waa inoo mar kale. salaam.